ciidamada dowladda Jubbaland ayaa goor walba u taagan ilaalinta nabadgelyada iyo la dagaalanka kooxaha argagixisada ee aragtida qalaad xambaarsan. Waxa ay goori ayaam heegan ugu jiraan oo ay toghaynta dhagarta ay maleegayaan kooxaha nabaddiidka iyagoona baxsanaya kana hortagaya qataraha ay ummadda Soomaaliyeed la maagan yihiin. Taliyaha ururka labaad ee ciidamada daraawiishta Jubbaland ee fadhigoodu yahay deegaanka Buluguduud Maxamuud Cabdi Cilmooge ayaa ka hadlay xaaladda ciidamada Soomaaliyeed iyo sida loogu baahan yahay in lagu garab istaago dagaalka nabaddiidka ay kula jiraan. Maxamuud Cabdi Cilmooge oo la hadlay warbaahinta dowladda Jubbaland ayaa sheegay in loo baahan yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed lagu dhiirigeliyo kubiirada ciidamada sarena loo qaado hamiga dhalinyarada ee difaaca dalkooda. Taliyaha oo arrimahaasi ka hadlay hadaladiisii waxaa ka mid ahaa sida tan: shaqadanadu waa inaanu maad garanaysaa cadawga Soomaaliyeed la dagaalano, shaqada naloo dirana aanu qabanno. Waxaan isleeyahay baahida ay hadda dadka Soomaaliyeed qabaan waa labo. midda koowaad baahida ay qabaan waa cadawga al-shabaab oo laga xoreeyo oo loo midoobo. Soomaali waxaan leeyahay cadawga Soomaaliyeed maanta waa al-shabaab ha loo midoobo. al-shabaab cidna heshiis lama ah, cidna ma rabto, cidna nolol uma ogola. ama hooyo ahaw, ama madaxweyne ahaw, ama gabadh yar ahaw, ama naafo ahaw, ama caawa dhalo. waxaan leeyahay marka anigu oon dadka Soomaaliyeed leeyahay cadawga Soomaaliyeed ha loo midoobo, hana la iska celiyo. qodobka koowaad. midda labaad ee baahida labaad ee la qabo waxaan isleeyahay waa ciidamada, inaan ciidamada yeelano oo aan cadawgeena kula dagaalano. ciidamadeena marka haddii ama aan dhiiranaan la dhiirigelinin ama inaha yaryar ee jira ee ama heer federaal ha ahaadaan ama heer state ha ahaadaan ee ay waxyaalo aan markaa in anfacaynin lagu mashquuliyo sax ma ah. waxaan leenahay marka baahidan qabna waa ciidamadeena ha la dhiirigeliyo, ha la garab istaago. waxa yareen haysanana waxa saxda ah ku mashquulaan, ayaguna ciidan iyo saraakiilba ku mashquulaan. dawladuhu heer federaal iyo heer state-na ha ku mashquuliyaan. anigu inta dardaaranka ana waan leeyahay madaxweynaha la qaban iyo madaxweynaha la keenay maamul goboleed baa la duwin iyo madaxweyne federaal baa la soo qeyn. waxa aniga afka iyaga ma aha. haddaan ciidanka Jubbaland nahay ama SNA ha ahaado ama ciidanka kale state-ka haba magacu doonima ha ahaadana anaga mid baan nahay. cadawgana waa al-shabaab. hooyo kastoo Soomaaliyeed iyo ruux kasta oo Soomaaliyeed siyaasi ana waa wuxuu leeyahay hooyo. gabdhuhu waa gabdhahanagi meel kasta ay joogaan, siyaasigu waa siyaasiganaga meel uu joogaba. waxaan leeyahay marka Soomaaliya ha midowdo, Soomaaliya ha midowdo. Maxamed Ibraahim, Washington, warbaahinta Jubbaland, Kismaayo.